السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa insha Allah taala inaan tuso qaabka loo galo website-ka Cafe Online isla markaana la iska diiwaan geliyo. Website-ka Cafe Online waa kan weeyaan. Marka categories-kiisi waa kuwan. Course-ka xagga hore yaala shashada horena waa kuwan. Marka waxaan doonayaa marka koowaad ee aad soo kiciso browser-kaaga www.cafeonline baad ku qoraysaa www.cafeonline waa kan la horaan u galay. Marka intaasaad ku gelaysa. Inta markaad ku gasho sanoo kale kugu soo baxaya. Sanoo kale markuu soo baxo waxa ugu horeeyaad sameynaysaa waxa weeyaan marka doonayso course inaad isdiiwaan geliso waxaad oranaysaa sign up. Halka sign up ku qorantay aad ku dhufanaysaa. Haddii aad hore isu diiwaan gelisayna sign in baad oranaysaa. Haddii aad laakiin ku cusubtay new tahay sign up baad oranaysaa. Sign up marka tiraahdid xaggan waa qofkii hore ma garanaysaa isagu ayaa gelinaya username-kiisi iyo ma garanaysaa password-kiisi uu gelinaya. Laakiin aad maxaad gelinaysaa halkan oo kale username-kaaga baad gelinaysaa. Waxaa la yiraahdaa Cafe. Email-kayguna waxaan Cafe email-kayguna waa ka. Marka waxaad ku isticmaalaysaa email-kaaga caadiga ayaad halkan gelinaysaa xaggana username-kaaga ama magac ku gaara. Halkan waxaad gelinaysaa password. Password-kaaga waxa weeyaan inuu xarfo yaryar iyo xarfo waaweyn isugu jira waa qasab waa compulsory. Si strong password noqdo oo aan cidina ka xadi karin. waa capital letters iyo small letters isugu jira. Inta marka aad samayso register bronze. Haddii aanad macallin ahayn tan tigta ha saarin. Haddii aad macallin tahay baad tigta saaraysaa tan halkan aad sii buuxinaysaa. Laakiin adigu taama saaraysid arday marka tahay kan baad saaraysaa. Tan waxaad leedahay register. Register marka tiraahdo in yar buu wareegaya oo sugaysaa. Haddii waxaagu sax yihiin wuxuu ku soo qorayaa registration completed successfully. Kadibna sidaas ayaad member kaga tahay Cafe Online. Marka halkan waxa weeyaan kan halka magacaaga ku soo qoray marka waxaad ku ogaanaysaa inaad ku jirto in kale halkan baad magacaaga kugu soo qoraya. Marka halkan waa account-kaagii oo profile-kaagii iyo certificates-ka qaadatay group-yada ku jirtay waxaas ku soo dhigaya. Halkan haddii aad koorsooyin iibsatay halkan ku soo dhigaya. Haddii aad wax iibsanaa activity waxyaalaha aad samaysay notification di message ku soo dhacday iyo settings iyo xaween. Marka waxaad samaynaysaa hadaba category-ga doonaysay baad tagaysaa. Marketer ba, business ba, civil engineering ba ama inta ku dhufato halka Cafe Online ku qorantay ayaa wuxuu kugu celinayaa shaashadii caadiga ahayd. Marka imika waxaan doonayaa customization inaan iibsado review course baan. Haas ku dhufanaysaa. Halka waxaad ka arki kartaa warbixin yar oo kooban markaad hadii jeer saacad u dul saarto wuxuu kuu sheegayaa warbixin yar oo kooban oo ku saabsan course-ka inta muddada aad ku dhameyn karto inta lecture ku jirta level-kiisa. Marka waxaad leedahay review marka tiraahdo saan kale kugu soo saaraya. Marka halkan waa description waa ardayda isdiiwaan gelisay iyo duration ku soconaya iyo lectures-ka ku jira iyo inta saacadood uu yahay waxyaalahaas ku jira level-kiisa. Xaggana waxyaalaha advertisement waxaas ku soo dhigaya. Marka course-kii halkan curriculum ay ku qorantay waxa ku jira casharadii. halkan reviews-kii wadaad review ka bixisay aad review wada oran kartaa. Waxaad yani fikirkaaga ku darsan kartaa. Maxaan leeyahay marka si aan course-kii iibsado marka lacagtu ku qoran tahay ee green-ka baad get course baad ku dhufanaysaa. Get course marka tiraahdo halkan one time payment iyo enroll with membership. Marka haddii group tiin oo kale laakiin halkan one time payment baad ku dhufanaysaa. Hal mar lacagta bixi. Dadna go card baad oranaysaa. Asamaysa marka waa ka course-kaaga marka. qaab nooceed lacagta daba bixinaysaa waad isweydiinaysaa. Offline payment baad dooranaysaa. Purchase baad oranaysaa dadna. waxyaalahan kale oo dhan ma shaqeynayaan wali. Laakiin waxaad oranaysaa offline payment inta tigta saarto kuwan kale hadii aad saarto
kuma shaqaynayaan weli maana activate gareyn offline kaasaad dooranaysaa purchase baad leedahay marka purchase marka tidhaahdid okay halkan buu markaa automatically ku keenayaa my course buu keenayaa no course marka saa tidhaahdid annaga xafiiskayga waxa usoo dhacaya notification iyo orderka inaad soo samaysay kadibna waanu ku activate gareynaa xaggan marka orderskaaga aad ka eegan kartaa marka orderkaasaad samaysay imika 24 bisha pending buu ku jira xaaladiisa weli weeyaan marka halkan baa completed ku noqonaysaa oo lagu activate gareynaya sidaasaad marka casharka ku daawanaysaa insha Allah taala saasaad ula socon doontaa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.